gudoomiye ku-xigeenka ciyaaraha Olombikada degmada Walaweyn mudane Cabdi Fataax Sheekh Abuukar ayaa waxa uu wasaaradda isboortiska Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay in ay wasaaradda ka caawiso sidii loo horumarin lahaa isboortiska degmada Walaweyn. Waxa uu gudoomiyuhu sheegay in degmada aanu lahayn garoomo caalami ah isla markaasna ay sanado badan ku soo shaqeeyeen caqabadooyin kala duwan. Gudoomiyaha oo hadaladiisa dhinacyo badan taabanayeen ayaa waxa uu ugu horeyn si diiran u amaanay gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Sido Abdiraxmaan. waxa uu sheegay in gudoomiyuhu markaasoo dhalinyaradu la garab taagan yahay sidii markaasi wax looga bedeli lahaa isla markaasna sare loogu qaadi lahaa xirfadda ciyaaraha degmada Walaweyn. marka hore waxaan halkan ugu mahad celinayaa ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Sido Abdiraxmaan. mudane gudoomiye aad baad u mahadsan tahay degmada aan laga qaadan canshuuraad iyo waxba aan jirin taas ayadoo jirto haddana gudoomiyaha mar walba wuxuu garab taagnaa isboortiska degmada Walaweyn intaan ba asaa gacanta ku hayay alxamdulillah. haddana maanta waxaan rabnaa in aniga codsigeena aan u gudbino dawladda Koonfur Galbeed waayo isboortiska waa sheyga kali oo bulshada isku keeni kara. isboortiska waa isdhexgalka waa bulshada ma ahan haddii anaga ka aamusno bulshada waxay u baahan tahay in la wacyi geliyo dhac badan laga taageero. haddii idinka aan la taageerin anaga ahaan ka gudoomiye isboorti ahaan anaga wax ma qaban karno waayo degmooyin badan oo hadda oo gobolka Koonfur Galbeed isboortiska in oo wax badan loo qabtay aan u jeednaa laakiin degmada Walaweyn ilaa hadda waxba anaga ma soo gaarin dhinaca Koonfur Galbeed. sida hadda waxaa loo dhisay degmooyin qaar garooman oo salax foostara loo furay haddana waxaan u jeeday in Baydhabo waxa laga furay meel oo lagu ciyaaro oo sida basketballka oo kale horumar bay ku talaabsadeen alxamdulillah. aniguna waxaan rabnaa dawladda Koonfur Galbeed si degmooyinkaas qaar iyo goboladaas qaar u horumareen in anigana horumarkaas ayaan idinka fadhinaa. sidoo kale waxa uu gudoomiyaha baaq culus u diray xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee ka soo jeeda degmada Walaweyn in ay iyagu sabab u noqdaan isla markaasna hormuud u noqdaan dardargelinta iyo hor u socodka sportska ee degmada Walaweyn. waxa uu gudoomiyaha si diiran markaasi uga codsaday isla markaasna ku dhiirigeliyay inay iyagu sabab u noqdaan markaasi dadaalada la doonayo in lagu horumariyo sportska degmada Walaweyn. dadka ku abtirsa degmada Walaweyn ka soo jeeda xildhibaanada kuwa federaalka iyo kuwa reer Koonfur Galbeed xildhibaanada degmada caqabadaha badan ka jirto inaad idinka na garab taagantiin anaga la'aantiin wax ma noqon karno idinka anaga la'aantiin wax ma noqon kartiin idinka la idinka rabaa idinka u ah speakerkii degmada idinka la idinka rabaa indhihii degmada idinka u ah idinka la idinka rabaa wax walba inaad degmadii soo dhicisaan inaad meel iska fadhiisataan ama meel iska aamustiin ma ahan. taasi ayaan baaq idinku dirayaa anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka Olombikada degmada Walaweyn Cabdi Fataax Sheekh Abuukar anoo ku hadlaya afka isboortiska degmada Walaweyn. dhammaan bahda isboortiska degmada Walaweyn ayaa fariintaas idinka wadaa waa salaamantihiin jimco mubaarak ayaan leeyahay jimco wanaagsan. Cabdi Qani Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Walaweyn.